waan waayay mid UK ayaan rabaa walaal Play Store-ka waan ka waayay application-ka kuma jiro Play Store-ka. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام لمان أصحابتك وحرن كنالك عبد من ستيفلر اسكو صلاه بشو ونكسن ملكستو كجوجتان دافع الدنيا muuqaalka maanta waxaan ka hadli doonaa sidee ayaad ugu samaysan kartaa WhatsApp meel kasta aad ka joogtid adduunka sidee ayaad u samayn kartaa fake WhatsApp account ee aan duubayo muuqaalkan hal sano ka hor sababta keentay in ay dad badan iga codsadeen in aan ka soo sameeyo qayb labaad muuqaalka iyadoo ay fahmi waayeen dadka muuqaalkii koowaad waxaa jira 3 application oo aad u baahan tahay application-ka koowaad waxa la yiraahdaa Freetone application-ka labaad waa VPN waxaa jira VPN aad u fara badan oo ku jira Play Store-ka ki aad rabtid ayaad ka isticmaali kartaa dhamaantood oo isku mid kan saddexaad oo ah application-kii WhatsApp-ka oo aad ku hagaajinaysay ama aad isticmaalaysay aad rabtay in aad ku hagaajisay lambarka marka ugu horeeya waxa aad ku xiraysaa VPN-ka kabacdi waxa aad kala garanaysaa dhammaan application-ka background-ka ku furan ayaad kala garanaysaa kabacdi waxa aad ku xiraysaa VPN-ka marka intaas kabacdi waxaad furanaysaa application-ka loo yaqaano Freetone application-ka marka aad furtid waxaad dhahaysaa create account ayaad dhahaysaa create account marka aad tiraahdo kabacdi waxaad dooranaysaa change numberka halka waxaad ku qoraysaa 402 ayaad ku qoraysaa si marka ugu dultigaysaa lambarada adiga oo aanan lambarka qaadan ayaa waxaad samaynaysaa lambarka inta aad koobi gareysato ama inta aad ku qorato meel waxaad la tagaysaa WhatsApp-ka ayaad gelinaysaa lambarka marka aad WhatsApp-ka geliso kabacdi ayaad dib ugu soo noqonaysaa application-ka lambarada faraha badan mid kamida adiga inta aad geliso WhatsApp-ka ayaad halkan ka dooranaysaa application-ka gudihiisa ayaad waxaad ka dooranaysaa lambarkii aad soo geliso WhatsApp-kaaga marka ugu horeeyo waxa sameynaysaa waa in aad sameysaa in aad gelisid lambarka WhatsApp-ka kabacdi aad WhatsApp-ka koodka u dirtid qaybta koodka marka aad qaybta koodka u dirtid waxa aad sameynaysaa waxaad ku soo noqonaysaa application-ka marka aad ku soo noqotid waxaad dooranaysaa lambarkii kabacdi waxaad gelinaysaa Gmail fake ama Gmail caadi ah sidii ku habboon ayaad u gelinaysaa Gmail-ka marka aad gelisid waxaad u gudbisaa qaybta saddexaad oo ah in uu ku soo dhaco kood lambarka marka aad dooratid waxa aad dhahaysaa create kabacdi waxaad ka register gareynaysaa halkan waxa aad gelinaysaa email-ka ayaad gelinaysaa email-ka marka aad gelisid sidoo kale waxaad gelinaysaa password kale waxaad gelinaysaa da'daada ayaad gelinaysaa lab ama dhadig waxa aad tahay ayaad gelinaysaa gender-ka kabacdi register ayaad dhahaysaa application-ka Freetone sidaas ayuu ku galay wuxuu ku gudbinayaa qaybtiisa kale marka uu ku gudbiyo waxa aad sameynaysaa waxaad ku dhufanaysaa use microphones okay intaas kabacdi marka halka ku geeyo waxa halkan kugu jira lambarkii aad ka soo register gareysay intaas kabacdi waxaad lambarkii WhatsApp waxaad dib ugu laabanaysaa WhatsApp-ka kabacdi waxaad u diraysaa call in uu call gareeyo intaas kabacdi waad sugaysaa dhowr daqiiqo ayaad sugaysaa waxaa dhici karta in uu marka koowaad marka uu dhamaado in uusan ku siin koodka intaas kabacdi waxaad samaynaysaa mar labaad ayaad ku celinaysaa mar saddexaad ayaad ku celinaysaa hadba fursad oo kuu siiyo waxa macquul ah inuu marka koowaad uu ku siiyo koodka sidoo kale waxa macquul ah marka labaad kabacdi waxaad dib ugu soo noqonaysaa application-kii halkaas ayaad ka helaysaa isagoo cod ahaana koodkii continue ayaad oranaysaa intaas kabacdi waxaad u gudbisaa WhatsApp-kaaga sidaas ayuu kugu shaqeynayaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalka fadlan haddii aad ka heshay like garee share garee lana wadaag asxaabtaada intaan muuqaal xiga inta aan muuqaalkan xiga ku filmi doono waxaan idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh